magacaygu waa cabdicasiis cabdilaahi maxamed cabdicasiis mucjis waxaan 1998 bishii 14 ku dhashay magaalada muqdisho waxa aan ku koray oo ku barbaaray waqtigeygii ugu badnaa ee nololeedna aan ku qaatay isla magaalada muqdisho qabyo weeye duniduba qof la tuuri kara ma leh mana jiro qof wada goba qofba waa si gaaray qaabkiisa kula dhaqan qofba waa si gaaray qaabkiisa kula dhaqan hana qaadan kibirkiyo qabka aanan meel jirin madal la isku qeexiyo qabiilku waa aqoonsiye qabyaalada ka dheerow reernimaha qiimayn qabri kuu dambeeyana ha ka noqon mid qaati runtii intii aan ku jiray dugsigaygii sare waxaan ahaa qof aad u xiiseeya suugaanta oo waxaan aad u jeclaa inaan taabuurka ardaydu istaagto ee ka horeeya kalaasyada ama xiisadaha ardaydu qaataan inaan uga qayb qaato gabayada suugaanta ummadii ninkii geesi dhalagoodka u waraysa weligiinba waad gaadantiin waanad gurantiin qiraadkiinu waa fooraraa waanad gadantiin isma gaadho adigaa iscuna gooriya ayaane gaarigaaga aan roori karin geer dambaa ku jira gaarigaaga aan roori karin geer dambaa ku jira kol haddaad gunnimo diido oo qaladka ka garawdo dibadbaxa gadood kale haddaad laabta uga guuxdo adiguna inaad sii gubtaa guriga aad joogto nabad laguma gaaray hubsada waana shay garee ha isgoynin gacantaada midig gu iyo jiilaale u guntada dadaal bay umadi guulku hana tahay runtii qof kasta oo suugaanyahan ah oo suugaanta sameeya ama abwaan ah waxaa jira uu kaga soocan yahay ragga dhigiisa ah ee isku waqtiga nool yihiin ee isku jiilka ay yihiin aniga waxaan isleeyahay cabdicasiis ahaan waxaad kaga soocan tahay halabuurka aad isku waqtiga tihiin ee isku da'da tihiin waxaan soo gudbiyaa suugaan u badan nafla hadalka maadaama aan dadka dhiirigeliyo oo soo gudbiyo hadalla tiraab ah oo dhiirigelin ah oo yacni kooban waxaan ku lamaaneeyaa marka suugaan nafla hadal ah oo dhiirigelin ah taasaa waxay keensataa badanka in suugaan ka duwan sidii hore loo tirin jiray inaan yacni soo saaro oon tiriyo in wada kale ama si kale ama qaab kale oo suugaaneed aan sameeyo taasaa ii suurtagelisay inaan ka socnaado ama aan isleeyahay dadka waa uga duwanaan kartaa kaalinta aan markaa bulshada u hayo waxay noqonaysaa inaan ahaado dhiirigeliye haddana suugaanta wax ku dhiirigeliya oo qofku markuu koobsado tix iyo tiraabba hadal caadi ah oo wax lagu dhiirigeliyo iyo suugaan nafla hadal ah qofka markuu labadaasi koobsado waxaa soo baxaya wax qurux badan waxbaa jira kugu weyn aad goolka la joogto waxbaa jira kugu weyn aad habeenkii ka gabdhilaada waxbaa jira kugu weyn aad gaari la soo raacday waxbaa jira kugu weyn aad isla maalinka dhabeen waxbaa jira tamsin waxbaa ku gubaya caawa hala seexan wax ku yar warqadtaada ugu yaraan qor inaad qaban kartid kulliyaal hasi ahaan markii ugu horreysay suugaanta meelihii aan ku faafiyey ama ku fidiyey waxaa ka mid ahaa baraha ay bulshadu ku qalanto maadaama hadda ay noqotay meel dad badani ay ku wada kulmaan waxaan markii hore markaan ku faafiyey suugaantayda baraha bulshada qaab qoraal ah kadib dhalinyaro badan ayaa ku xirmay meelaha aan ka isticmaalo social mediaha sida facebooka youtube-ka iyo waxyaabaha la mid ah markaas codsiyadoodii waxaa ka mid ahaa inaan hab muuqaalna aan u soo gudbiyo suugaanta waxaad hadimada xanuunka hortaada dhigtood ilmaysay intaad hamigaaga doontay waxaad hagarli i dadaashay hanfarka shidan iyo kulaylku hoog iyo bu'u waa ayaamo hal iyo laba maalin weeyi hadhigin rajadee bal hayso intii hore kuu xumaysay intii hadafkaaga diiday intaad heli weyday hooska hal abuurkaagii doraato hadduu tegi waaye meella ha joojin dadaalka sii wad hankaaga dhisoo adkayso u hiili naftaada suuban ha qaadan dareenka quusta aqbal ha u noqon isdhiibka ha siinin hankaaga goorna qofaan hiigsanaynin goobta hayaankaagu wuu dul yaallo haliyey adigaa ah caana ha eegin duruufo hoose habaas iyo boodhka taagan muhiimaddu waa horseedka halkanaad hiigsanayso hayaanka adigoonan joojin intaad hami kala abuurto halgan oo qofkaaga qaado